الله الرحمن الرحيم أردت أن أجعل لها هاتيرتي كلا دو مسؤولين إن هاتيرتي كلا ناي هلا بجعل لها أو يكون الفكر كله جبتان لكن واحد نودا هاتين أمس لابطي marka mar hadii la aamusay waxaan ka baqayaa wixii aan sheegay marka in dabada la qabso leeyahay waxa soo ka wajigana iyadoo marka hore la hadlay anyway siday ila tahay waxa ugu muuqdaa ma ku sheegaya xanuunadan hadda soo badanaya horta waxay daba yaaleen kuwii kii hore oo chikungunya la oran jiray oo barcodkiisa ay qabateen horta daba yaaleen xanuun horta ka fog maaha xanuun ka fog maaha waa xanuuno wada socday waxaan hadda anoo kala sixi karin inay kala xanuuna yihiin oo meel kanaaca ka jira meel dengue baa ka jira muxuu ahaa fever meel waxaa ka jira chikungunya fever baa ka jira meel waxaa la sheegayaa arrimo kale xataa inay jiri karayaan oo hadda ka hor 2006 marna la ku dayay oo la wadankii Rift Valley baa ka jira mar xoolahana la ka mamnuucahay oo la rabay kuwa Australia inay soo rigaareen ka taa haddii warkooda waa maqmaqlaya laakiin ma aan hubo sida wax uga jira laakiin kullayba waxa la oran karaa ilaa hadda taan inta information helay magaalooyinkii 2015 aan la buufin xanuunkaasi badanaaba kama jiro hadduu ka jirana meelii la buufiyo qof ka tegay oo kaneecadu inta untay ee u gudbisay dadka kale baa ka jira very good example waxa waaye magaalada Garowe oo kaleeto magaalada Garowe lama buufin magaalooyin badan oo la buufin bay ka mid tahay marka halkaan ka sahal leedahay hadda aan u bixin kama jiro qof ka tegay jalka ayuu meel la buufiyo tagay kaneecada qaninta waxa laga yaabaa dadka inay u gudbiso dad xoogaala waxay ii sheegeen buufintii ugu horreysay 2015 markii la waxeeyey 14 bari kadib xanuunkaasi inuu jiray oo bilowday ma sii karaan laakiin siyaabahaas la leeyahay laakiin waxaan sii karaa kawshahan dambe markuu bilowday 2019 oo gaalka aad u soo baxay markaas inaan la hadlay tuulooyinka galbeedka bariga gaalka ay jira badankoodina la hadlay halkii xanuunka ka jira waa waay halkii xanuunka ka jira waa waay mar waxaa la ii sheegay reer buubuunin aan wuxuu ii sheegay laba qof oo gaalka ka tagtay inay xanuunkaas ay u jiifto wuu ii sheegay laakiin hadda waa fidayaa xanuunka wuxuu u fidayaa qofkii xanuunka qabay baa mataqaanaa arrin tegaya meelaha kala tegaya waxaan kaloo qiyaasaya mana hubo markaan wasiirka arrimaha gudaha aan arrintaas kala hadlay buufinta waa malaynaya maraan telefoon kula hadlay sidaas ahayd laakiin mas'uuliyadda weyn waxay saaran tahay waxa weeyaan wasaaradda caafimaadka dhakhtar independent yahay waxaan ku hadlahayaa cidna kuma masalo waa aniga fikradeeda waa ka doctor xanuunada maalmihii dambe magaalada ku soo badanayay waxa kaloo jirta qandho qofka hadii ay ku dhacdo mararka qaar ay u dhintaanba maxaa la isdhihi karaa xanuunadan xageesa ka yimaadeen maxaa la isdhihi karaa waxaan u malaynayaa inaan adiga wax badan oo adigu aadan ogeyn inaa hadda ogahay at this point inaysan jirin baan u malaynaya laakiin male dhakhtar waxaan isleeyahay kulliba xanuunka marka hore xanuunkaas chikungunya ahaa intii la sheegayay dad xataa dhiig laga qaado Nairobi la geeyo dengue virus baa qabtaan xataa way jireen laakiin kulliba dad waxaa laga yaabaa inay yihiin xanuunka specifically si gaar u target gareeyay caafimaad darro iyaga ku jira ama keliyahooda ama beerkooda ama miisugooda ama wadnaha garanaysaa GI tractigan mataqaanaa caloosheeda oo ama dadkaasoo laga yaabo difaaca jirkooda inuu hooseeyo xanuunkan chikungunya kuwa kale ku dhacay inay difaaciisa aad u meel hoose geeyaan oo markaa taasi ay sababto dadkaas inay ama dhiig matagaan ama sanka dhiig ka keenaan ama ay mataqaanaa uga dhintaan laakiin arrin kale jirta waagii boosaasta laga helay kaneecadan vivax kale leeyahay dad badan baa dhintay oo sankii dhiig ka keenay afkaysaan maqlay waxaa laga yaabaa isagiina inuu ugu hoos jiro kaneecadii vivaxka inay ku jira meesha baa dhici kara laakiin kuwa ka waaweyn baa la sheegayaa oo sida hadda ataa soo sheegay hadda ka hor marna la yiri xoolihii naaqaba magaran doctor marka xanuunkan
caruurta ay dhiigga afka keenayaan ma kaneecada laga qaadaa saakin ma ay jirto xanuun waxaa jira kaneecadu ay keento oo black water fever la yidhaahdo oo kaneecadu keento oo qofku maaragtay uu keeno dhiig uu ka keeno mataqaanaa ibta ka keeno meelo badan dhiig uu ka keeni karaa jira taasna waa suurtagal nafsigeedu inay jirto waa black water feverku inuu jiro magacaas inay lahayd baan u malaynayaa dhakhaatiirtii dhegeysanaysaa iga sixi doonta waa nooc kaneecada ka mida oo keliyaha markiiba joojiya oo markiiba qofka dila oo markiiba qofku dhiig uu dhigahayo inuu matagayo laakiin inuu dhifta ka dhigayo baan qiyaasaya marka waxaa sheegayo dhan kulli waa malayaal aadi kara meelo fara badan aadi kara laakiin hade mar haddii aan wax la baaray oo hadda wasaaradda caafimaadku hadda ay sheegtay aysan jirinin sida kaloo haatan dhakhaatiirtu ay ku hadashaa oo iska noqonaya personal opinion yani ra'yi shaksiya oo qof sida ay wax leeyihiin laakiin anu waxaan kusoo oran lahaa markaan soo koobo balaayo buufintii kama horreyn baan oran lahaa balaayo buufintii kama horreyn doctore xanuunadan ma koley wadanka lagama aqoon wadan shisheeye ka imaada ma filaynaa maxaa daawo u noqon karaa la isleeyahay waxaan u malaynayaa markii dalka wada gaaro ama dalal badan hadda eritrea waa laga sheegaya jabuuti waa laga sheegaya suudaan waa laga sheegaya kenya iska wadaa iyada waa gurigeeda annaga waa kana waa noo yimid hadduu jiku ku yahay hadduu dayg virus yahay marka waxay la tahay kulleyba haddee kulleyba tallaal baa xigi doonaan u malaynaya tallaaladaasaa la banaya tallaal unbaa laynoo keeni doonaa waxaa la oran doonaa waa ladinka tallaalaya haddaal xanuunadaas sidoo kale waxaa jirta markii dadka laga tago xoolihii xataa in banaanka magaalada ay ku xanuunsanaya ay dhacayaanba wallaahi arrimahaasi arrimo aada u ballaaran weya de qofku meel uu ka galaba qofku runkii garan maayo maalin dhaweyto inkastoo social media hadda waxyaalaha beentaa ku bateen waxaan arkahayay gawaari fara badan oo taagan xadka jabuuti iyo kii jabuuti iyo somaliland taagan oo nin ka warramaya uu leeyahay intaasoo container oo buunshaha weeye marka dhaqsuur hadduu fuulo waa dhibanayaa xoolaha somaliland baa loo wadaa meelo badan dad badan asxaabna u dirdiran waxaynu warkaas ma haysaan cidna ima soo jawaabin marka dad waxay leeyihiin xoolahan waa la tallaalay dad waxay leeyihiin mataqaanaa maaqaan buunshahaasi wax lamid ay cuneen yani wax la sixi kara ma aha anugu hadda dhakhtar xoolood maahi baa waxaan jeclaan lahaa inaad ka wareysato shalay telefishinka s b c doorkii waxaa laga wareysanayay dhakhtar xanaanada xoolaha ah baa laga wareysanaya xanuunadan xoolaha marka iyadoo markaa uu soo galay baa qola ii timid oo warkii badankiisu way dhaafay waan gartay doctore marka bulshada soomaaliyeed oo ku dhegeysanaysaa maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa haddii alla idmo bulshooy soomaaliyey dawlad baad u baahantihin soomaaliyey dawlad baad u baahantihin soomaaliyey dawlad baad u baahantihin